waxay yiraahdeen naag la'aani waa naf la'aan oo yaa alla yaqaan wasaas ragga single ka day ba mahmadan maqlaan wuxuu nafta waa maxay niyo laakiin qolada mahmadan sameeyay ha inay yar qurxiyaan ba ficnaan lahayd marka dhanka gabdhaha ka eego may yiraahdeen dumar la'aani ha waa runay waa naf la'aan xogaa naagta ka xogaa naagtaas ay ku yar ilaa hadda joognaa gabdhaha ka xajiimoonay wasaas kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeena sahanka suugaanta wali waxa garabkayga fadhiya abwaan tabiye markii hore aan la oran jiray insan abwaan ka noqonin Xuseen Maxamed haddana abwaan tabiye la bax abwaan ka kana fuulay abwaan mahmaayaha Soomaalida ee maanta miiska inoo saaran wasaas Soomaalida horta hadda markay sheekaysan suma mahmaahda mise way iska sheekaysataa niyo horta waagi hore mise hadda midba waagi hore hadalkan ninka hadlaya markuu nin weyn yahay tuusan mahmaah iyo hadal xigmadaysan ku jirin hadal lama dhihi jirin aad iyo aad oo soo qaadasho ma lahayn aad iyo aad waxaana kugu daliil ah mahmaayaha aan isticmaalay Soomaali baa tirin lagu hayo nin un baa yiri anaga nin baa bixi ha aad iyo aad murtidaas nin bay ka hadhay aad iyo aad laakiin maanta haba yaraatay hal nin oo mahmaah soo kordhiyay qarniga anaga aan soo gaarnay ma jiro oo leeyahay hebel baa mahmaah yiri aad iyo aad nin abwaan oo maalin hadlayaan daawad wasaas wuxuu ka hadlayay eray bixinta af Soomaaliga wasaas wuxuu warigii hore Soomaalidii hore iyadoo oo aan xalaariyin ahayn oo reer magaal ahayn bay eray bixinta ku fiicnay waxay arkaan ba magac bay ula bixi jireen wasaas hadda laakiin eray bixintii way dhamaatay waxa tusaale wuxuu soo qaatay magaalada Soomaaliya waxa ku soo batay brigade wasaas geedkii magac in loo bixiyo ma aha Soomaaliya geed cusub oo aan hore u jirin baa soo kordhay Soomaalida hadda joogtay intay isu tageen dhalinyaradii aqoon-yahanka jaamacadihii bay geedkii magac intay waayeen bay dhigeen garan waa wasaas oo la garan waa magac kale ma jiro ha waan garan caadiga ah ee quraac iyo garas hebel aan leenahay gabadha la joogtay iyo wiil barbaar magac haduu rabo bixin jiray wasaas xawiyana ku dheereen daawadayaasha toban mahmaho wasaas baynu la wadaagina daawadayaasha waa haye walina waa barnaamijkeena sahanka iyo suugaanta oo ku dhex jirnaa oo aynu marba suugaanta Soomaalida aan qayb ka soo qaadan doono mahmaahiyuhuna waa suugaanta Soomaalida laf dhabarteed aad oo weyn hadalkan hadaan la qurxinin maba hadal ma san mahmaah lahayn oo murti lahayn oo mashiiqsi lahayn de waa hadal umwadkee galay wasaas mahmaahda koobaad waxay oranaysaa tobanka mahmaahood ee maanta wad gole waa saymo gole waa saymo waa saymo gole waa saymo waa la iska hagaajiyaa waa saase saymaha waxa laga wadaa waa madal aad iyo aad golahu sidiisa waa madal dad isugu yimid waa meel la fariisto oo isugu yimaadaan ilaa waxa jooga culimadii iyo waqtiskii iyo caaqilkii iyo abwaankii mid walba jooga meeshaas oo kale marka afkaaga iyo adinkaaga waa la ilaaliyaa bay dhaheen aad oo weyn marka waxay dhahdaan gole marka tagayso waa saymo afkaagana waa la controlaa adinkaagana waa la ilaaliyaa hugaagana waa la ilaaliyaa waxaad madal la tagayso huga aad la shirtagayso isna waa la ilaaliyaa wasaas mahmaahda koobaad saas ina leedahay haye waxay dhahdeen indha jacayl isma eegaan laba qof ay isticmaalay soo hor fadhiistaan ama ay bulsho ku dhex jiraan indhaha iskuma xariiraan caadi iskuma xiriiri karaan haayo waxa laga yaabaa gabadh inay indhaha xagga u rogonayso isna cidiyaha farayo cidiyaha xagga u farayso waa marka lala joogo ayaa marka iyaga kaligood yihiin ma waa runay marka taasna casharka waxaynu ka baranaynaa waliba gabdhii hore dadka isticmaalaha soo faaleeya waa saa aad waliba soo warceliya waliba gabdhii hore markii yaani muxuu ahay uu la fadhiyo ninkan xodxodanayo ama markaas la sheekeysanayo dhulkii qodi jireen ama qori iyo waxba iskaga falaadi jireen oo kuma soo eegayso intay fiirsaas kuma eegayso laakiin hadda waa indhaha ku saaraysa hadii doon hadda jacaylka ka sheekeynana kan ma kii hore hay hadal waa margo kale weeyaan waa margigo kale margigo waa runay waa margiga geela iyo xoolaha iskinka laga goyn jiro waliba geela xarka laga soo hijray wuu jiidmaya marka waa plastic adu si kala daba dhaxno jiidmaya waa runay hadal waa margo kale hadda meel u jiidmay qareemay bay ku jirtay waa runay mahmaahda afraad waxay leedahay qof aan dhididini ma dhargo qof aan dhididin ma dhargo tacabkay ku faraysaa mahmaahda tahay waa mahmaahda kale anaga aan ku darsanay 2020 aan saxinay niman shaqaysan shaah macbadi niman shaqaysan shaah macbadi abwaan gabay buu wuxuu ku darsaday mahmaahda ku fadhiya wasaas abwaanka loo yiraahdo Cabdiwaaxid Cali Gamaandiid wasaas ba wuxuu gabay ku darsaday tagogaha ninkii laabtay ee taxarruga u diid asaagiisa inuu tuugsadaa waa tulo baabay waa runay waa mahmaahdi oo gabay ah oo tuduc ah aad iyo aad ayuu halkaan inoo sheegay abwaanku gar iyo geeri loo siman gar iyo geeri labada waa loo siman garna waa cadaalad ha noqoto wiilkaaga iyo wiilgaal hadaad u garniqi gartaa loo waxay yiraahdeen gartaa loo simaa gashigana waa lala bixiyaa waa runay gaalka dil gartiisana siibay Soomaaliya taa wiilkaaga iyo wiilgaal hada u ka garnaqayso cadaalada fiiri cadaalad u samee garta cadaalad u qaad gashiga laakiin wiilkaaga la bixi wasaas ilaa sayidinka waa wiilkaaga wax la bixi waa runay laakiin garta ha uga yaxan ha uga yaxan maamaadaasina murtida xigmad badan ayaa ku jirta falaysa
rag haween la'aan rag haween baa kala horeysiye rag haween baa kala horeysiye aad iyo aad laba wiil oo isleeg baa guursanaya midna rifrif buu yeelanayaa oo kuleetiga isagoo cirka eegayo guriga ka soo baxaya waa saas ishu halka ka soo jeed aad iyo aad midna isagoo dhiibsan oo labisan oo nuuraya guriga ka soo baxaya waa saas mid dhaqaalihiisa kobcayo koraya aad oo weyn midna iyo naakal ku guursan bay isleeyahay hadii jeebku soo buurnaado oo xoogaaga dambe ka dhigaysa isdaba marinaysa waliba hal yar baan xigmad yar baan ku darayaa oo ay inta badan soo qaataan iswaanyahanada taasi oo ah saddex nin يعني محوها نين مالن وحالي نين مالن مقالي نين السنة مقالي نين وليقا مقالي نين مقالي واساس نين كاتيقات في عن أما كا حوالة داجس في عن مقالي يعني محوها مالن مقالي واساس وايو نحدد وصودا جيلالك مسوغايو oo xilliga qorraxeed jiilaalka kala haraysa bad kala haraysa usmid waa maanaysa adoo soo daaji ninna sanad ma gaadhido waa ninkee ka faraska fiican iyo ninka ka faraska fiican ee faraska dheereeya leh kaasi maalin ma gaadhid bay ahayd kan sanad ma gaadhid leeyahay kan ka xoolo daajiska fiican kan weliga ma gaadhid la yirina waa ka xaaska fiican waa sax gabdhaha la isku dhaaf aad iyo aad marka gabdhaha la isku dhaaf taasina walka waxay kaloo yiraahdeen nin geed geli jiray geed looma galo geed geli jiray geed looma galo tihay nin waxa uu isagu sameyn jiray laguma dayo tugtug ma xaqo waa tugtug ma xaqo isagu sameyn jiray baad ku dayda aad iyo aad wala fahmaya wala baasha gal leexu waa saas waxay yiraahdeen naag la'aani waa naf la'aan oo yaa alla yaqaan waa saas ragga single qaaday baa mahmadan maqlaan wuxuu nafta waa maxay nin laakiin qoladii mahmadan sameysay inay yar qurxiyaan ba ficnaanay marka dhanka gabdhaha ka eego may yiraahdaan dumar la'aani waa runay waa naf la'aan xogaa naagtaas ilaa hadda joognaa gabdhaha ka xajiimoonay waxa yiraahdaan naag la'aani waa naf la'aan waa runay xarafka nacda ana miisaanka mahmaadu miisaan way qurxinaya laba nac baa ku jira laba kalmood ku jira aad oo weyn marka dumar hadeen ku bedelo way jabaysaa miisaankii bay naga xumaanay waa ma dheeli waxay noqon dheeli galay tala xumo tog baas bay ka ridaa waa runay tala xumo waa saas tog baas bay ka ridaa ayo badan oo talada ay Soomaalidu leedahay aad oo weyn marka taladana intaas ayaynu ka soo qaadanay aadane ceeb ma waayo qof aadama ceeb ma waayo aadani waa saas ceeb qof dhamaystiran ma jiro xaraan bay ka tahay sababta adduunka ma dhamaystiran waa saas adduunka qabiye taas waxayna tusisaa ragayna daawanaya ku rafaaday say gabadhu raadinayaan dhamaystiran heli maysaane tisay u heli ma helaysid tiina hadda haysaan waxa isleedahay ma halkan ay ka yar maartay liidaysaa wala inta taa raadinaysaa ciladna ha ahaato deeha ku qaado 80 haday keento 20 ku darso ku qaado ala buuxin kare waa saas qof kale inoo soo xidhaba aad baad u mahadsan tahay barnaamijkaasi xiisaha leh halka baan ku soo koobaynaa tan iyo kulankeena xiga waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadiino waxay yiraahdeen naag la'aani waa naf la'aan oo yaa alla yaqaan waa saas ragga single qaaday baa mahmadan maqlaan wuxuu nafta waa maxay nin laakiin qoladii mahmadan sameysay inay yar qurxiyaan ba ficnaanay marka dhanka gabdhaha ka eego may yiraahdaan dumar la'aani waa runay waa naf la'aan xogaa naagtaas ilaa hadda joognaa gabdhaha ka xajiimoonay waa saas